dowladda Kenya ayaa maanta lagu wadaa in ay ka hadasho khilaafka ka taagan gobolka Gedo iyo saameynta uu ku yeeshay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Dhanka kale, xildhibaan ka tirsan ismaamulka Mandera ayaa ku hanjabay in ay awood isaga saari doonaan Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa oo halkaasi ku sugan. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warka Nairobi ka soo diray. dowladda Kenya ayaa ku casuuntay qaybaha kala duwan ee warbaahinta inay ka soo qayb galaan shir jaraa'id oo afayeenkeeda maanta uu ku qabanayo magaalada Nairobi. shirkaasi jaraa'idna waxaa la cadeeyay in looga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan dagaalkii ka dhacay gobolka Gedo iyo warbixintii ay soo saareen guddiga xaqiiq raadinta ee IGAD ay u xil saareen in si dhab ah ay warbixin uga keenaan tabashooyin ka soo yeeray dhinaca dalka Soomaaliya oo ku wajahnaa dhinaca dalka Kenya. afayeenka ayaa la filayaa in si toos ah uu dul istaago aragtida dowladda Kenya ee salka ku haysa warbixintii ay soo saareen guddiga xaqiiq raadinta oo dowladda federaalka Soomaaliya dhinaceeda ay tilmaamtay in guddigaasi marnaba warbixintiisa aan lagu tilmaami karin mid dhexdhexaad ahayd. dhinaca kale, xildhibaanad Khayr Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ismaamulka Mandera ayaa waxa ay si kulul uga hadashay dagaalkii ka dhacay gobolka Gedo iyo saameynta uu ku yeeshay shacabka ay ku matasho xildhibaannimada. Khayr ayaa sheegtay dowladda dhexe ee Kenya inay u muuqato in marnaba aysan ka fikirin ammaanka guud ee dadkeeda, sidaa daraadeedna haddii ay yihiin xildhibaanada ismaamulka Mandera ay iyagu u istaagi doonaan badbaadinta shacabkooda sida ay hadalka u dhigtay, isla markaana si awood ay ku dheehan tahay deegaanada ismaamulka Mandera ay uga saari doonaan Cabdirashiid Janan, wasiirka amniga Jubbaland iyo ciidamo daacad u ah oo ku sugan halkaasi. tan waa hay leadershipka Mandera County arrin falxun ay ahayd in dawladeena aan u malaynin in annaga ay ilaalinayaan dad milishiya oo waxay danta ay leeyihiin baan annaga aan garanaynin oon dadkeena meeshadooda iskugu bedeshay, dadna ay naga dhinteen, dadna naga dhaawacmeen, lifekeena argagaxsi aan ku jirno. ma annaga ma dad kale aan ka cararnaa, ma ayagan ku cararnaa. marka waa arrin aad u falxun. marka waxaan dhihi lahaa dawladda Kenya aan fariin u fari lahaa oo fariin adag u fari lahaa in ay waxaan ay naga dhaafaan. annaga haddii ay dadka naga bixin waayeen maandhaweedna culimada iyo shicibkaba way ka hadleen, aadayna uga hadleen, wax laga qabtana male. laakiin hadda waxay tahay inaan annaga iska bixino bay noqon doontaa, aan dadkeena aan mobilize gareyn tu aan ka tuugaynana ma aha hadda. marka waxaa waaye waa arrin aad u falxun. moogid danta ay leeyihiin meel kale ku suubisan karaan, laakiin meel dad ay degan yihiin oo border ay saaran yihiin inay dadka saas ku baabi'iyaan ma aha. ay haddana ay diidaan danta ay leeyihiin ayaga og meelo kale ha ku raadsadaan, laakiin dadkeena ay naga rafaadineen. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa muddo dheer kadib soo magacaabay liiska xubnaha guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed. dhinaca kalena waxaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada loogu baaqay in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho si loo xaliyo tabashooyinka ka taagan doorashooyinka kadib cadaadis uga imaaday beesha caalamka, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa qoraal ku soo saaray liiska guddiga xubnaha doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ugu matalaya doorashada dalka. labadan maamul ayaa in muddo ah laga warsugayay inay soo magacaabaan xubnaha guddigan kadib khilaaf soo kala dhexgalay iyaga iyo madaxda dowladda federaalka. guddiga ay soo saareen maamulka Puntland oo ka kooban 8 xubnood ayaa waxaa ku jira 2 haween, waxayna kaliyiin 8 xubnood ee Puntland ugu matalaya doorashada dalka: Cabdikariin Muuse Maxamuud, Muuse Cabduqaadir Ducaali, Axmed Cabdi Maxamuud, Aynaansha Yuusuf Xuseen, Ciiduruus Axmed Faarax, Cabdirasaaq Cabdulle Faarax, Farxiyo Xuseen Maxamuud iyo Canab Xaaji Saleebaan Warsame. sidoo kale qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay dhankooda ay ku soo saareen liiska xubnaha guddiga oo ka kooban 8 xubnood, kuwaas oo kala ah Siyaad Maxamed Mursal, Axmed Maxamuud Cumar, Axmed Cabdinuur, Samsom Faarax Abuukar, Maxamed Cismaan Gaab, Ibraahim Aadan Ibraahim, Axmed Yuusuf Maxamed iyo Abuukar Nuur Cabdi. dhinaca kale warsaxaafadeed ay si wada jir ah ay u soo saareen maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waxaa loogu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay isugu yimaadaan shir degdeg ah si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada.
maamulada puntland iyo jubbaland ayaa sheegay inay muhiim tahay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay shir deg deg ah ay isugu yimaadaan muqdisho 30 bishan January oo ku beegan maalinta Sabtida ah. Labadan maamul goboleed ayaa qoraalkooda waxay ku tilmaameen inay diyaar u yihiin sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo. Sidoo kale Puntland iyo Jubbaland ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay gacan ka geystaan badbaadinta Soomaaliya haddii bay yiraahdeen la gaaro 8 bisha February iyagoo aan lagu heshiin arrimaha doorashada. magacaabista xubnaha guddiga doorashada ugu metelaya Puntland iyo Jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswan uu socdaal ku mariyay deegaanada maamul goboleedyada. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xalay ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana la soo sheegayaa in uu haleelay gaari ay saarnaayeen ciidanka daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed. ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhaawacmay, waxaana laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad 2 ka mid ah ciidankaasi. goobjoogayaal ayaa KNN u sheegay in askarta ku dhaawacantay weerarkaasi bambaano la geeyay isbitaalka degmada Walaweyn si loogu daweeyo. wararku waxay intaasi ku darayaan in weerarka kadib ay ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ay sameeyeen howlgal aan natiijo ka soo bixin, kuwaas oo ay ku baadigoobayeen kooxihii ka dambeeyay weerarka. ciidamada maamulka Jubbaland ayaa la sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qabteen dagaal ka dhacay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Cabdimajiid Cabbaas Aadan ayaa warkan soo diray. wararkaynu ka helino degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal u dhaxeeya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland uu duleedka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku dhex maray, waxaana dagaalkaasi ka soo baxaya faahfaahinno dheeraad ahi. dagaalka oo muddo saacado badan socday ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana xilligan markaasi la soo warinayaa in xaaladdu ay degan tahay, walow qaybaha dagaalka uu ka dhacay ee xilligan ku sugan yihiin ciidamada ammaanka ee degmada Afmadow oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland oo xilligan ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo aan xiriiro kala duwan la sameynay ayaa waxay noo sheegeen in dagaalka ay ku qabteen tiro dagaalamayaal ah oo gaaraysa 4 xubnood sida ay sheegeen saraakiisha. dhinaca kale saraakiisha ciidamada Jubbaland ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegeen inay xilligan gacanta ku hayaan deegaano ay hore ugu sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay sheegeen inta badan inay ka soo abaabuli jireen weerarada ay ka geystaan degmada Afmadow iyo sidoo kale deegaanada ku teedsan. Al-Shabaab ayaa dhankooda ilaa iyo hadda aanu wali ka hadlin sheegashada ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Gado ee ah in tiro dagaalamayaal ahi looga qabtay dagaalka ka dhacay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ee ku sugan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa xilligan waxa ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan deegaankaasi, waxaana la soo warinayaa in ciidamadu ay baaritaano ka wadaan gudaha ay deegaanka dagaalka uu ku dhex maray iyaga iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan degmada Afmadow oo inta badan ay ka geystaan weeraro ay markaasi ku qaadaan xarumaha ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland ay ku leeyihiin halkaasi. Cabdilmajiid Cabbaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Kulmiye. markana wararka dibadda. wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay hayso cadeymo muujinaya in ciidamada Eritreyaanka ee ku sugan gobolka Tigray ay geysanayaan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo boob ay dadka kula kacayaan, waxaana uu ku baaqay inay isaga baxaan gobolkaasi Tigray. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay shaaca ka qaaday in aysan u dulqaadan doonin sii joogitaanka ciidamadaasi, waxaana ay ku baaqday in ay wada hadlaan shacabka gobolkaasi iyo dowladda Ethiopia si loo gaarsiiyo halkaasi gargaar bani-aadamnimo. November sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Ethiopia ay duulaan xoogan ku maquunisay hogaamiyaasha gobolka Tigrayga. ugu dambeynna booliiska dalka Lubnaan ayaa xaqiijiyey in 9 askartoodii ay ku dhaawacmeen rabshado ka socda deegaanka Saraya ee magaalada Tripoli ee dalka Lubnaan. saraakiisha booliiska ayaa shaaca ka qaaday in dad badan oo isku soo baxay ay isku dayeen inay jiraan goobaha difaaca ay kaga jireen booliiska rabshadaha ka hortaga. Laanqeyrta cas waxay sheegtay in 27 qof oo dhaawac ah ay qaaday
kadib markii ay ku dhaawacmeen rabshadaha maalintii saddexaad ka socda dalka lubnaan ee looga soo horjeedo bandowga xanuunka covid-19